waxaan ku yidhi ilaahayow mawdkaygu ilaawin wallahi ilaahay inuu is ilaawin waa ogaa laakiin ilaahu mawdkaygu ilaawin baa ku yidhi ilaahu baryan kale ilaahayow mawdkaygu ilaawin ilaahay handul ku bilo aadankiisa addoon uu ilaawaya male qof walba uu la socdaa ilaahay xanuunku wuxuu ii tusay waa handul ku waa cimri qaadasho waa tusaale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال عاد بان دين سلام يا ميلو الباشوكتان دون على ذا شرف لي كلام كركينها هاتو عدكيغا هدا سليدين انت عدك maxaa maanta kaga dhacay si codkiisu yahay miyuu qofkaan codkiisu noolayn hadaa is dhaadaan waa ajalad miyaa cuntay waxa miyuu koorka xunka ajalad cunaa isdeenine waa xanuunsada saaxiibayaal waxa weeye ma garanaysaa intii aan ka maqnaa YouTube ka maqnaa xanuun baan kaga maqnaa isbitaalan ku jiray waxa weeye xanuuno badan baa intii isku kay darmadeen baa aniga dhan mood baan ku jiray ma dadka lama hadli karinin wallahi xaalad adag baan kala marka mood baa ram intii la isiyay ma malayn kartaan waa shikiyay markaas mood markii la gelay waxaan ku yiri ilaahayow moodkaygu ilaawin والله إلهي إنس إلاوي وأوعى لكن إله متكي وإله باقي إله بريان كان إلهي ومتكي وإله إلهي عنده الكرة بالآذن كيس أدون وإلهي ماله قف والباء ولا الصعداء إلهي حنون كوحو يتصي وعنده الكرة وعمر قادشو وتصالة وعنده الكرة يعني الدنيا ذا كليس كلها تجينا آخرنا وشي يسوي ما فهمسه marka aamus aniga dhama hadalkiiba andu la koro lagu xiray qof haduu ila soo dadka asxaabtayda ahaa oo ila soo hadliyay oo dhan baan andu la ku roon yahay baan waxaan keen inaan la hadli waayo hooyo aabe iyo qaraabo iyo ehelkii sidee tahay xaaladaada ka war markay dhahan waxaan ku iraahdaa waa fiicanahay caadi baan anoo isbitaal ku jiro oo faran bigu xiray yahay waa waxaan ugu ramay iyaga caadi baan ahay waa andu la koro waa fiicanahay ma garanaysaa iyo walaalo dhamaantood macaa walaala ugu ramay si hooyo aabiyo ugu sheegin oo si iga walwal maadaama isku meel joogin oo si walwal badan u dareeminin ma garanaysaa anigana xaalad adag intii qandhal la ii dhiibay wadii xanuuno badan markii isku kala darmadaan waa dareemaysaa qandha intii ii dhiibay ma dhiig lay baariya laga waayay ma garanaysaa marka xaaladayda waxay noqotay xaalad aad u adag waxa weeye marka saas aan kaga maqnaa waxa weeye dadka ii soo duceeyay hadaa iraado waxaan hantul ku rooyaa ka baqay dadka inta wada maxaa nooga qoranaysaa oo aabe familkii dhammaan in ilahan xanuunka saakuuya maxaa nooga qoranaysaa yamtan kale cid walba asxaabaday tahay dad kale haday tahay shib baan ka gala afkaaga saaxirtay ilaahay baan bariyay ilaahay oo hantul ku rooyahay ilaahay waa ku bariyaa waxaan ku yiri xanuunkaaga dulqaad ilaahay waa ku bariyaa xanuunkaaga dulqaad baan ku waxaan ogaaday caafimaadka handuu la ku rooyahay iyo qosolka iyo bararaqdi aan ku jiray wallahi iyo markii caafimaadka alxamdulillah rabbil caalamiin waxa weeye 8 bari wixii iga dhignayd midda 8 sano oo kale bay iga dhignayd 8 bari si handuu la ku rooyahay ma garanaysaa marka waxa weeye waxaan rabaa inaan halkan idinku sheego idinku soo gudbiyo wixii saaxiibayaal in kagama maqnayn meel kale in kagama maqnayn xanuunkaas ayaan kaga maqnaa hadda waa soo xafaaroobay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaad u soo fariistay familka hadda dhamaan waa arkayaan dadka fiigan waa soo xafaaroobay codkan kaliya codkii bay bedeleen codkii baan soo noqonay moodka ka soo baxay waa aniga hadlaya ma garanaysaa marka ma sha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin waa soo roonaanaya waxaan rajaynayaa caafimaadkaygana si fiican u soo noqdo waxa weeye ma garanaysaa idinkuna ii soo duceeya saaxiibayaal dad badan oo aad ii jecel baa handul ku roon yahay dhamaan hadda saxaabadu ay soo wacayaan geesiyo maxaa ugu dhacay filinkii aaway handul ku roon haday tahay Facebook haday tahay
whatsappka haday tahay meel walba dadkay la soo xiriirayaan war filimka maxaa ku dhacay ma naga kala jartay minta kaliya noogu joojisay maxaa kaaga dhacay buu leeyahay marka idinkama joojine xasaas aan kaga maqnaa saaxiibayaal waxa weeye anigiiba xaalad kale ku jiray anigiiba yaa allah ku jiray ma garanaysaa waxa weeye marka haddii la ku rooyahay hal isu duceeyo saaxiibayaal in haddii la ku rooyahay فقطع إلهي قاسي أنت حنون صنو لن حنونك إلهي كدل قاضو أنت عافماتك قبطنا وعافماتك السيدي هذه والله أنتو وحن صح صوست هستي أنتو الكورون يا عيد عافماتك أنتو الكورون يا يعريانك هست كالسي ومقرنسا قف البوح ويستمع قف كلا قرن هستي هيد فرحفسك قاعد هستاس وصح صوست مركب وعوي تنكله markaas anoo soo jeeda baba waxaan hadul ku rooyay balay hadul ku ka sheekeynaya wayaabani anoo soo jeeda waa xanuunka waxaas moogti hadul ku rooyay balay saas u ciirsanaysa balay qarbada ana balay ku dhex sheekeysan saan waxaan siri miyaa waalad ma waliba soo wada ma cararta ma lagu sixray ma hadul ku rooyay xaaladaada sidee calooshuna moogto waa makiinad marna anaa waxay u dhex sheekaysanayaan marna anaa isla sheekaysanayay marka qandhana meel bay iga karkarinaysaa saan waxaan siri waxaan noocaana weligay ima qaban moogti tan waa tii kugu dambeysay adduunyo kaga aruuri lahayd baan siri waa taa kaga dhammaan lahayd markaasaan ilaahay baan beri waxaan ku yiri ilaahayow hadday tahay tii igu dambeysay adduunkan kaga aruuri lahaa ilaahu nafta igu dhibin baa ku yiri oo qandhadan iyo waxaan oo dhan ha igu dhibin ilaahayow adiga ka warqaba saacadayda hadii la ku xanuunka nalada ay keenay ilaahayow si fudud ii dhaaf nafta xanuun maday maalintiin waxa la tusay ma malayn kartaan hadday si taydi ahayna ilaahayow waxaan ka bariyaa ka codsanayaa in xanuunka iga dulqaadin alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baryadeedii iga aqbalay qandhadii beledahayd iga dulqaaday waa haduu ku rooyahay soo caafimaaday asxaab badan oo haduu ku rooyay garbayga ayagana garab joogay oo haduu ku rooyay haday isbitaal tahay haday tahay haduu ku rooyahay in waxay keenan war sidii waayeelkan socdo markaan haduu ku isbitaalka la dhigay wajiga ilaahay saanta markaan dhulka dhigay waa ka fiirsanaya saa way yaabeen asxaabtu igu markii wadaan ana xanuunsan bi igu qoslayaan maxaa kaasiya wase waayeelka sidii saanta dhigaya idaaya maariha waxa weeye marka xanuunsatid caafimaadku wuxuu yahay ogaanaysaa laakiin marka caafimaad qabtid ma handul ku ma ogid waxaas oo dhan alxamdulillah rabbil caalamiin marka tusaale waxay tahay handul ku roon yahay walaalayaal xarig ilaahay la siideyn naftan inta lagu soo jira ka hor qabtid laakiin hadii aad xarig ilaahay haysatid tukanaysin shantaada salaadood aad tukanaysid hadii aad dhimatin macaa markaas ma sha Allah qof xarig ilaahay haystay baa taa moogti laakiin adigoo xarig ilaahay haysay adduunyada soo dawltay hadii dhimatay baa kugu diro oo lagu qabto dhab hadii lagu siiyo marka waxa weeye aad baa idin salaamaya hal soo duceeyo insha Allah filmaantina filimka meeshiisi baan kaga bilaabi doonaa hadii ilaahay idmo waxa weeye ma garanaysaa intaas aan inkaga aamusnaa waxaan kaga aamusnaa waxay tahay waan hadli karin banin mood ku jiraan qof mood ku jira ma hadli kara wali aamusi cali aamusi dadka ila joogay baan waxaan qabaa ayagoo ila fadhiya ila sheekaysanayna u jawaabay indhaha kaliya sa uga fiirinay ma garanaysaa oo hadal waxay dhibi cilinta ay dhibisay ma garanaysaa marka doctorkii handul ku roon yahay caafimaadkayga handul ku la qayb qaatay oo bilow ilaa dhamaad handul ku roon yahay cirbadahaas ay la daba taagnaa checkinka ay la daba taagnaa fitamiinada waxa dhan handul ku caafimaadkayga dhan saa handul ku roon yahay ula socday Dr. Ismaaciil aad buu mahadsan yahay asagana abaalkaaga ma gudi kara doctore sidoo kale handul ku roon yahay asxaabtii si gaarka ay la socotay Qadar Shariif Cabdi Shukri Maxamed Jaamac asxaabtii sida gaarka ay la socotay mar walba handul ku roon yahay Cabdi Naasir
sida gaarka igu imaanay mar walba ay isu qumay gacantii ahaa lugaha ay ahaa idin kala abaalkiina ma gudu kara saaxiibayaal aad u mahadsantihiin waxa weeye maalintii haddii la ku roon yahay qof badee ma adduunkan qof karantii haysta ma jiro wala soo qaban kara idin kale lagu soo dhigi karaa moogti maalintiina sax abaalkiina ay dhigateen garanaysaa waa waajibkiina gudateen aad u mahadsantiin idinkana waxa weeye asxaabta kale oo dul ku raa sida gaarka ay la dareentay iyadana aad u mahadsantiin dhamaantiin oo familkii ugu horeeyaan walaalo hooyo aabo aad u mahadsantiin idinkana sida gaarka mar walba ila soo xiriiriseen walaal aan xanuunkayga aan si fiican idinku sheegin waxa aan kaga qariyana ay ahayd inayna walwal aad u baran inayna dareemin hadda laakiin aad baan u fiicanahay ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وإذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباراة المنتخب الإسباني بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستين وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسعو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartooyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee goolaadka شيء كبير kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Samtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Samtel caalami